السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan xaggan ka salaamayaa dhammaan dadka ku jira groupka insha Allah hadduu ilaahay idmo. waa Abdullah Cali Aadan Guuleed, Silver Line Distributor, kasoo hadlaya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxaan jecelahay insha Allah hadduu ilaahay idmo inaan maaragtay isla wadaagno caawana aan kala qaadano tababar ka hadlaya wax soo saarka shirkadda. caawana insha Allah hadduu ilaahay idmo waxaan baran doonaa mid ka mid ah wax soo saarada ugu la yaabka badan ugu mucjisada badan amazing ah arrimo badan oo caafimaadna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo dadka ugu bogsiyay. maanta wax soo saarka aan qaadanayna waxaa loo yaqaanaa Chotsin. soo markaa Chotsin ka fiirino Chotsinka insha Allah hadduu ilaahay waxaan ka baran doonaa dhinacyo badan ayaan ka eegi doonaa sida maaragtay ninka la yiraahdo habdhiska jirka bini'aadanka xaggan aad ka arkaysaana waxyaabo fara badan ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad uga dhigay oo waxtar u leeyahay. sidaasoo kale meelaha ugu waaweyn sida qaaska aan xusi doono waxaa ka mid ah wax loo yaqaano cardiovascular diseases, cudurrada ku dhaco wadnaha iyo xididada. iyo Chotsintana waan baran doonaa burada iyo kansarka. iyo Chotsintana waan baran doonaa haddii la idmo. diabetika, habdhiska difaaca jirka ee hoos mara, iyo hormone imbalansiga wax loo yiraahdo hormone imbalance oo ah hormoonada qaldama iyo sida Chotsinta insha Allah ay wax uga qabanayso. Chotsin waa gasaca xagga idinkaga muuqanaya gasaca ayaa loo yaqaanaa Chotsin. marka Chotsin markaa fiirino sida ayuu u yaalaa gasaca 100 mir oo capsule ayaa ku jirto. marka geeska kala fiiriso borderkaas ama budadaas ayay ka samaysan tahay oo noolaha aan arki doono ka yimiday. marka Chotsin work on different organs for various health benefits. siyaabo kala duwan ama xubnaha kala duwan ee jirka bini'aadamka ayay habab kala duwan oo caafimaad u leedahay. oo xubnaha ama systemska ama organiska jirkeena iyo unugyada si qaasa ayay waxay u leedahay midba si kala duwan ayay ula shaqaysaa oo caafimaad ahaan u leedahay. marka Chotsinta waa curyaha lixaad ee jirkeena ku jiro marka laga hadlayo curinoleedyada jirka ku jiro. waxaa kaloo loo yaqaanaa chitin. marka budada la shiido oo Chotsinta noolaha ka samaysan arki doono borderka ama budada laga sameeyo chitin ayaa la yiraahdaa ama Chotsin ayaa la yiraahdaa. marka waxaan fiirinaynaa hadduu la idmo chitinka waa ka xagga ka muuqanayo waxyaabaha sida gaarka Chotsinta ay faa'iidooyin u leedahay. horta kow shirkaddu waxay samaysay khuburo caafimaad oo diyaariyo sidii wax soo saarkeeda loo isticmaali lahay iyadoo oo laga duulayo in sida ugu fiican jirka bini'aadanka loola tacaalo cudurrada ku yimaado. waxayna soo saareen wax la yiraahdo Tianis Health Concept kaasoo qoraya kow in qofka bini'aadanka jirkiisa uu helo cleansing oo la siiyo dawooyin jirka nadiifiya. marka jirka waxyaabaha ka saa'idka ee cudurrada dhaliya laga saaro oo la siiyo cleanerska ama cleanserska dawooyinka nadiifiyaasha la yiraahdo ayaa waxaa jira kuwa la yiraahdo nourishers nafaqeeyaasha. kabacdina waxaa jira dawooyin balancing samaynaya oo habdhiska difaaca jirka adkaynaya ka hortagna samaynaya. ka hortaguna iska daaweynta ayuu ka fiican yahay. gaar ahaan marka Chotsin waxyaabaha ay faa'iidooyinku leedahay waxaa ka mid ah kow lower lipid. waxyaabaha loo yaqaano kolestaroolka ama dufanka ayay hoos u dhigtaa. waxay jirka bini'aadanka u diidaa deposit of lipid inay dufan isku aruursado xididadaada ama wadnahaaga ama meel kale ama beerkaaga inay wax dufan u jirkaaga oo saa'ida degaan ayay u diidaa. control blood sugar waxay xakamaysaa sonkorta typekeeda blood sugar loo yaqaano. good to keep away cancer cell sidoo kale waxay meesha ka saartaa ama go'doomisaa ama inuu faafa u diidaa unugyada kansarka. sidaa awgeed Chotsin maanta waa caalamka dawada ugu fiican oo la aqoonsan yahay inay kansarka daawo ka tahay. waxaa jira dad dibadaha loo qaaday wadankeena Soomaaliya laga qaaday oo Hindiya la geeyay laakiin Ilaahay amarkiis ka keenay Chotsin oo iyagoo Chotsin wata yimiday. taasina waxay noqotay xaqiiqdii la yaab ayay noqotay. improve liver function waxay sare marisaa shaqada beerka. sidoo kale waxay nadiifisaa beerka ay ka nadiifisaa waxyaabaha toxinska cudurrada ku dhaliya. increase immunity habdhiska difaaca jirka ayay kordhisaa oo difaaca jirka ayay adkaysaa. Chotsin is the only positive wax noolaha keliya waxay ka samaysantaa noolaha keliya positive ion is the only positive ion that has positive electricity. waa mid kamida waxyaabaha si dhif iyo qaliila loo soo helo caalamka
maxaa yeelay waxaan ognahay waxyaabaha aan garanayno nool oo dhan waxay leeyihiin negative ion lidana balaas ay leeyihiin marka xayawaankan ay ka samaysan tahay oo ah nooc ka mid ah argoosada badda waxay leedahay positive ion kaasoo la falgalaya wax allaala wixii negative ee jirkaaga ku jira kabacdina waxaa imaanaya balance electricity of the body waxa la so as to relieve some health problems taasina waxay dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay meesha ka saaraysaa maadaama waxyaabihii negative-ka ah ee jirkeena xidhaya ee xididadeena xidhayay maaragtay habdhiska garaaca wadnaheena iyo habdhiska dhiigga wareegiisa bedelayay taasina ay cudurro fara dhalinaysa meesha ka cudurro fara badan dhalinaysa meesha ka saarayso jodsiin waxay noqoto markaa mid caalamka oo dhan laga isticmaalo markaan fiirino noolihii ay ka samaysneed waa kanaha siyaabo kala duwan ayuuna saan horu sheegnay jirka uu leeyahay jodsiin healthy care jodsiin kow excellent for nutrition including waxa waaye xagga nafaqaynta ayay excellent ku tahay sidaasoo kale digestion ulceration dilaaca ku yimaado habdhiska dheefshiidka ama waxa gastriga loo yaqaano gastrid calooleedka loo yaqaano ama nabar gudeed hadduu jiro ayay faa'iido u leedahay oy daawo ka tahay good for pain injury sida arki doono dhaawaca ka yimaada gubashada ayay jodsiintu u fiican tahay waxay kaloo u fiican tahay nabar duleed ama nabar guda hadduu jiro oo nabar uu jiro uu dhaawac wound uu jiro ayay u fiican tahay help intestinal function mindhicirada shaqadooda ayay u fiican tahay sidoo kale waxay qayb ka tahay beautification waxa la yidhaha qurxinta and weight loss ama weight control and beautification in qofku isqurxiyo isagoo u maraya inuu jirkiisa balance gareeyo oo overweightka obesity waxa la yidhaha iska ilaaliyo ayay qayb ka tahay absorb and remove heavy metals jirkeena ayay toxinska ama biraha culus waxa la yidhaha ka saartaa anti cancer ayay tahay lower limit NHB MBB waxay controlshaa inta loogu talagalay jirka ee flood ama dheecaan jirkaaga loogu talagalay iyo dufanka ayay ilaalisaa control blood sugar improve liver function sidaasoo kale waxay qayb ka tahay dawooyinka lagula tacaalo dhiikarka oo marka dadka jodsiinta qaatay la fiiriyey heerkooda dhiikarka sefe la sameeyey ama baari la sameeyey 99% aad bay ugu ladnaadeen markaan fiirino jodsiin health care weli ku jira lower limit ayaan dhahnay control blood sugar obstruct the absorption fatties dufankii sida hadda meeshan waxaa arkaysaa xididadii wadnaha iyo wadnihii oo dufan yeeshay ayaa meeshan ku sawiran ood arki kartaa increase markaa taasina waxa waaye jodsiintu waxay la falgelaysaa xididada ayay furaysaa taasina waxay samaynaysaa wax loo yaqaano adjust inay dheelitirto oo ay nidaamiso value of blood flow active and repair cells unugyada jirkeenana ay dayactirto marka unugyada jirka la dayactiro dadku inta badan waxay la dagaalamayaan qabatika waxa la yiraahdo waayo rejuvenation cell rejuvenation ayay noqonaysaa oo dib bay usoo dhalinaysaa unugyadii dib bay u dayactiraysaa taasina faa'iido fara badan ay caafimaadkeena u leenahay markaan fiirino kansarka waxaa jiro kansarku wuxuu u fidaa ilaahay naga haya si dhaqsa ayuu jirka bini'aadanka ugu fidaa laakiin jodsiinta waxaa la tijaabiyey inay samaynayso inay cancer formationka ka hortagto inay diido isku hareereyso oy dhinacyada ka marto unugyadii kansarka ee faafaya stop cancer cell from spreading fididda ayay u diideysaa control cancer cell for duplication inuu isbadiyo ayay diideysaa hadduu doonayo qof idinka mida inuu tijaabiyo waxaan aan ka sheekaynay jodsiinta inuu tijaabiyo hadduu doonayo wuxuu samayn karaa gurigiisa koob ayuu biyo ku shubayaa saliid ayuu ku darayaa markaa saliiddaa sidaan ognahay waxay isku fidinaysaa biyaha dushooda sidana saliiddii markay isugu fidi maxaa la samaynayaa 4 kaabsool oo jodsiina ayaa lagu furayaa waa lagu darayaa waxay la falgelaysaa saliiddii biyaha dushooda tiilay way isku hareereynaysaa dhagaxyo kuuskuusan ayay ka dhigaysaa salka ayayna la degaysaa marka waxaa arki doontaa koobkii biyaha aad ku shubtay oo 4 dhagax ama 3 dhagax waxaad moodayso ay salka ka yaalaan iyo biyihii oo nadiifo oo biyahana saliid lagu dara aadan dhehaynin taasina waxay caddayn u tahay sida jirkeenna ay u nadiifiso dufankana ula falgasho jodsiintu gurigaaga ayaadna ku tijaabi kartaa adiga ayaa tijaabi kara cid kale uma baahnid taasna waxay kuu caddaynaysaa sida ay ula falgalayso sidoo kale xaggan waxaa noo yaalla beerki ayaa noo sawiran marka protective function liver cell
waxay difaacdaa unugyada beerka ayay difaac u tahay oo u diidaa wasaqda iyo wax alaal wixii ku imaanayo waxayna dardar gelisaa shaqada uu qabanayo detoxification waxa la yidhaahdo nadiifin oo ay dushiisa nadiifiso oo ay u diido wax allaala wixii ka saa'ida oo isaga unugyadiisa shaqadiisa beerka wax u dhimayo cudurrada beerkana waa lagu daweeyaa marka liver functionka ayay improve u samaysaa jodsiinta markaan fiirino xagga difaaca jirka sidaan ognahay jirkeenu wuxuu leeyahay habdhis difaaca jirka oo sida gaashaanka oo kale ah marka sababta gaashaanka loo samaysto waa in wax laga gambado sababta guryaha loogu yeelan kanjeel waa in wax looga gambado sababta darishad loo sameeyo waa in wax laysaga celsho sidaas oo kale difaaca jirku wuxuu leeyahay ku dadaalid iyo dayacaad sida aan alaabada aan haysano u difaacno oon meel fiican ugu xanaanayno ama aan meel bannaanka oo baylaha ugu ilowno kale ayaan caafimaadkeennana habdhiska difaaca jirkiisa u dadaali karnaa ama maaragtay aan u dayici karnaa sidaas awgeed jodsiin waxay dhistaa habdhiska difaaca jirka iyadoo maanta uu jiro cudur difaaca jirka la shaqaynaya coronavirus ilaahay naga hayo oo caalamka maanta uu ka jiro xaqiiqdii jodsiinku waxay leedahay antivirus habdhiska difaaca jirka ayay gaashaan u tahay effective remove heavy metals sida mercury oo kale iyo waxaasna jirka ayay ka saaraysaa jodsiin markaa fiirino habdhiska dheefshiidka jodsiin aad bay ugu wanaagsan tahay maxaa yeelay waxay lafal gastriga ayay daawo ka tahay mindhicirada ayay ninka la yidhaahdo daaweysaa dilaac hadduu jiro nabar gudaha ayay ninka la yidhahdo ribeer ku samaysaa sidaasoo kale waxay aad ugu fiican tahay sidaan hore uga dhawaajiyey waxaa loo yaqaano healing of wounds dhaawacyada bogsiintooda without scar hadduu qofku gubto oo macnaha good for burn injury dadka beeninka gubashadu ku dhacday haddii la mariyo oo jodsiin la siiyo oo borderkeeda la mariyo iyadoo weliba scar daqar madow reebaynin ayay dhaawaca bogsiinaysaa kan gudaha iyo kan dibaddaba marka aan fiirino jodsiin realism cudurro fara badan oo kala duwan ayaa looga ladnaaday gaar ahaan waxaan fiirinaynaa natiijo lama filaana meelaha sida qaaska ay u leedahay waa cardiovascular disease cudurradii wadnaha maadaama ay dhiiggii furayso xididadii dhiigga sifaynayso waxay balans garaysaa garaaca wadnaha waxay furaysaa xididadii waxay diidaysaa jirkaaga tumor buro ayay u diidaysaa oo qofka burada 20 habeen interta la ekaato ayay baabi'inaysaa dad fara badan oon siinay cadeymaha ka soo laabtay alxamdulilah aad baan ugu faraxnay xaqiiqdii burooyinka ay jirka u diidaa kansarka ayay diidaa jirka ayay nadiifisaa miisaanka ayay dhintaa miisaanka ayay la dagaalantaa oo jodsiintu waxay lambar 1 ka tahay weight losska waxa loo yaqaano inay dadku ay lahaadaan body mass index dheelitiran oo qofka cufka iyo culayska jirkiisa saaran iyo dhirirkiisa marka la isu qaybiyo hawsha soo baxaysa body mass index la yiraahdaa sidoo kale beautificationka markaan ka hadlayna quruxda iyo iscaataynta qayb bay ka tahay maski in wejiga la marsado jodsiin iyo isburlina la isku daraa calcium powder budada calciumka ayaa lagu qasaa markay muddo yar qasnaato biyo dir lagu qaso ay qabowdo waa la marsadaa sida awgeed waxay soo samaysaa natural beautyka gel lotionkii oo kale sida kareemadii oo kale isticmaalaysaa wejigaagaad marinaysaa markay ku qallasho ayaad dhaqaysaa ama waad ku jiifanaysaa subaxdii iska dhaqaysaa waxaadna dareemaysaa isbedel weyn waxaa la sameeyey nin raga ayaa wejigiisa laba loo qaybiyey xaggaa sankaa laga soo qaybiyey dhinacan oo isha iyo goonkaana waa la mariyey dhinacaana ma la marin 30 daqiiqo ka bacdi ayaa la dhaqay waxaana la arkay inuu qofkii si kala nuuca oo u yaallo haddana wax jirkaaga xidida ka soo saarayo oo kiimikaal oo jirkaaga wax yeelaya ma ahan marka aad isticmaalayso inaad isku qurxiso jodsiin waxay kale u fiican tahay general weakness daciiftinimada guud neeftuurka qofkii oo shaqo badan qaban karin daalka dhacsaasha sonkorta dheefshiidka cuntada xumaato cudurrada wadnaha dhammaan problemada beerka ku yimaada kiliyaha sida awgeed due to so many functions iyadoo ay sabab u tahay shaqooyinka fara badan oo wanaagsan oo ay u qabanaysa jirkeena waxay soo saartaa jodsiin amazing result and being used more and more countries in the world global seminar ayaa jiro seminaaro iyo dhaqaatiir badan oo caalami oo tiyanis ka shaqeyn ayaa jiro oo jodsiin uga hadlay wax soo saarada ay baroobeeyeen uga hadlay ayaa jiro marka ugu dambeystii nimaado sidee loo isticmaalaa jodsiin waxaa loo isticmaalaa 2 subaxdii iyo 2 habeenkii ayaa la qaataa marka aad doonayso inaad isku caatayso cuntada kadib waa la qaataa markaad xaalado caafimaad ama kiliyaha ama wadnaha ama nabar ama qashin saar ama ekfishin ama gastric u isticmaalaysana cunto ka hor la qaataa 3 waad qaadan kartaa 4 waad qaadan kartaa laakiin ka badan ma qaadan kartid 2 waqti ayaa la qaataa biyo dirna lagu qaataa
tani waa trusted product waa shahaadada ay jodsiin haysto thank you very much aad baad mahadsantihiin tababarkayga caawa xaggaas ku dhan yahay waxaan rajaynayaa dowladda inaad jodsiin qaadan doono waxaan rajaynayaa dowladda inaad su'aalaha waxaad ka fahantaan jodsiinta iyo waxa fahmi weysaa igu soo celin doontaan